madaxweynaha Soomaaliya iyo khudbadiisii oo jeediyay ayaa waxay ahayd shacabka inay caawiyaan oo wax la qabtaan. Waa markii iigu horreysay oon madaxweynaha dhageysto. Dadka badan Soomaalida inay khudbadaas madaxweynaha oo jeediyay sanadan cusub 2023 inay ka aqbalaan. Waxaan rajeynayaa insha Allahu tacaala sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash iyo nabad Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu gaarsiiyo. Madaxweynaha Soomaaliya hambalyo ayaan ku leeyahay madaxweyne. Waa soo dhaweynaa hadalkaadii macaanay. soo dhawaaw aniga Insha Allah waxaa guul ayaan ku rajeynaa insha Allah. guul madaxweyne sanadkan cusub kusoo dhawaa madaxweyneheena